السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ku xiran channelka marka la soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin maanta muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago madaxweyne Trump oo madaxa ciidda ka cishanaya ayaa yiri uma baahni taageerada isbahaysiga NATO kadib markii dhammaanba wadamada ku jira isbahaysiga NATO ay diideen inay ciidamo u soo diraan sugidda amniga marinka Hormuz haddaba Trump arrintaasi uu ka hadlay ayaan idinla wadaagayaa xilli shalay uu dhahayay wadamada NATO waxaan ugu baaqayaa in sugidda amniga marinka Hormuz ay gacan nagu siiyaan laakiin madaxweyne Trump iyo maamulkiisa fashil weyn ayaa maanta la soo gudboonaaday kadib markii madaxa la dagaalanka argagixisada uu iscasilay waraaqdiisa iscasilaadana uu ku sheegay in Iran aysan qatar ku ahayn Mareykanka isla markaana dagaalkan Israa'iil dartii uu Mareykanku u galay arrintaasi Trump wuxuu uga jawaabay sidoo kale waraaqda iscasilaada uu qoray madaxa la dagaalanka argagixisada ee dowladda Mareykankana sidoo kale waan idinla wadaagaya warbixinta Trump waxaan ognahay maalmihii la soo dhaafay in qaar ka mid ah madaxda wadamada caalamka gaar ahaan isbahaysiga NATO ugu baaqayay in ay gacan ku siiyaan sugidda amniga marinka Hormuz oo Iran ay sheegtay in gabi ahaanba uu ka xiran yahay wadamada cadawga oo sida ay sheegtay Mareykanka iyo sidoo kalena in Israa'iil iyo wadamada kale ee garabka siinaya sidaas darteed waxa uu Trump ka codsanayay in ciidamo iyo maraakiib dagaal ay u soo diraan marinka Hormuz laakiin dhammaanba madaxda isbahaysiga NATO arrintaas waa ay ka gaabsadeen wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka waxa uu yiri dagaalkaas annaga dagaalkeena ma ahan sidoo kale waxaan ogeyn in ra'iisul wasaaraha waddanka Ingiriiska uu yiri ma dooneyno dagaal saf ballaaran ah in gacmaha na loo geliyo waxa sidoo kale jirtay in wadamada NATO intooda badan ama dhamaantoodba ay gabi ahaanba arrintaasi ay ka gaabsadeen haddaba madaxweyne Trump oo aqalka cad maanta kula kulmayay ra'iisul wasaaraha waddanka Ireland ayaa waxa uu ka hadlay arrintaasi waxa uu yiri uma baahnin isagoo madaxa ciidda ka cishanaya taageerada isbahaysiga NATO waxa uu sheegay in NATO markastaba wuxuu yiri waan ogaa marka aan u baahano inaysan na garab istaagaynin maxaa yeelay waxa uu yiri ciidamo fara badan ayaa naga jooga wadamadooda markastana amnigooda ayaan sugnaa shalay Trump mar uu la kulmayay gudiga Trump Kennedy Centerka oo isagu gacantiisa uu ku sameeyay waxa la arkayay afkiisa isagoo ka ilaalinaya in uu yiraahdo caawinaad ayaan uga baahanahay NATO laakiin waxa uu dhahayay marka in need ay jirto marka baahi ay jirto waxa loo baahnaa inay garab istaagaan caawinaad ayaan uga baahanahay ayuu afkiisa ka ilaalinayay hadda marka waxa uu yiri waxaan aad ula yaabo yiri go'aanka ay madaxda isbahaysiga NATO ay gaareen isla markaana ay sheegayaan ayuu yiri inay si buuxda igu taageersan yihiin in Iran uu dagaalkan ku qaado isla markaana nuclear-kooda uu meesha ka saaro qatarna ay ku ahayd caalamka laakiin markii aan u baahanay inay nagu caawiyaan sugidda amniga marinka Hormuz waxa uu yiri arrintaasi gabi ahaanba waa ay iska diideen marka wuxuu yiri la yaab arrintaasi ila ma ahan markastaba waan ogaa ayuu yiri in NATO marka annaga aan u baahanahay aysan garabkeena aysan ka soo muuqanaynin isla markaana lacaga fara badan ayaan ku bixinaa xitaa bartiisa True Socialka qoraalkan dheer ayuu ku soo qoray oo arrimahaas uga hadlayo marka Trump waxa la weydiiyay in uu isaga baxayo isbahaysiga NATO iyo in kale markaas wuxuu yiri arrintaasi waan ka fikirayaa waana go'aan aan qaadan karo marka reer Europe isku tasha ninkan Trump habeenkii saqda dhexe markuu hurdo iska waa intuu soo kaco hal mar waxa uu bartiisa True Social uu ku soo qori karaa NATO waanba isaga baxnayba shalay xitaa waxa uu sheegay neetada la sheegayo waa inaga ayuu yiri neeta kale ma jirtaba haddii arrintaasi aad u baahan tihiin Putin weydiiyo Putin anaga ayuu naga cabsanaya moogi wadamada Europe kama cabsanayo wadamada kama dadanayo yiri wuxuu waa kan niyo jabsanahay isbahaysiga NATO arrintaana ma ahayn arrin aan ka filayno NATO 32 wadan ayaa ku jiro xeerka shanaadna waxa uu sheegayaa in haddii wadan duulaan lagu soo qaado in dhammaantoodba ay tahay in duulaankaasi lagu soo qaado oo dagaalka ay galayaan laakiin Mareykanku markii uu dagaalkan galayay wadamada isbahaysiga NATO ma uusan ku wargelin isaga Israa'iil oo kaliya ayaa isla oga marka isaga laguma soo qaadin ee duulaankan isaga ayaa qaaday marka sidaas darteed madaxda isbahaysiga NATO waxay leeyihiin dagaal markii la galayaba aan loo sheegin anaga hadda ma ahan xilli kala bar uu marayo in aan ku biirno waxa sidoo kalena Trump uu yiri wadamada midowga Yurub waxaan ku garab istaagnay markii la caawinayay Ukraine oo dagaalka Ruushka kula jirta laakiin Trump waxaan ognahay inuu ku ololeeyay xilligii Biden oo madaxweynaha ahaa haddii la doorto lacag dambe Ukraine ma siinayo markii la doortayna waa kii yiri hubka Yurub adinkan idinka iibinaya kadibna Ukraine ka sii iibiya haddana credit ayuu ku sheeganaya wuxuu leeyahay Ukraine taageeradeeda madaxda isbahaysiga NATO ama Yurub gacan ayaan ku siinay hadda inagu markii aan u baahanayna sidoo kalena gacanna ma siinaya haddaba Trump markii uu la kulmayay ra'iisul wasaaraha Ireland
oo su-aashaasi la weydiiyey maanta taageerada NATO uu dhahayo uma baahnin isbahaysiga NATO. bal dhinaca kale maanta waxaa la yaab noqotay oo maamulka madaxweyne Trump wejigabax iyo fadeexad ku ah dagaalkan Iran uu ku qaaday in Israa'iil darteeda u galay isla markaana aysan muuqanin qatar ah in Iran ay qatar ku tahay Mareykanka. haddaba madaxa la dagaalanka argagixisada ee wadanka Mareykanka ninka la yiraahdo waa Director of National Counterterrorism Center waa xarunta la dagaalanka argagixisada ee qaranka ninka madaxda ka ah ayaa maanta iscasilay waxana uu sheegay in sababta uu isku casilayna ay tahay dagaalka Iran darteed maxaa yeelay Iran qatar ma aysan ku ahayn Mareykankuna wuxuu dagaalkan u galay Israa'iil darteed. haddaba waraaqda iscasilaada uu qoray ayaan rabaa inaan idinla wadaago. wuxuu yiri wax badan markaan milacsaday waxaan go'aansaday inaan iska casilo booskayga ah madaxa waaxda qaranka ee la dagaalanka argagixisada laga bilaabo maanta. waxa uu yiri ma sii taageeri karo yiri dagaalkan socda ee Iran isla markaana ma aysan muuqanin Iran inay qatar muuqato ku tahay wadankeena. waxa uu sidoo kale sheegay inay iska caddahay in Mareykanku dagaalkan uu u bilaabay cadaadis uga yimid dowladda Israa'iil iyo sidoo kale loobiyada awoodda badan ee Mareykanka ka jira. macnaha waa ururada taageero ay u ololeeya markastaba xildhibaanada Mareykanka u ololeeyo soo saaro si Iran si Israa'iil darteed ay u taageeraan. marka arinta ugu horeysa ayaa waxay tahay ba arin la yaab leh uu leeyahay Iran qatar ma aysan ku ahayn Mareykanka laakiin cadaadis Israa'iil ka yimid darteed ayaa Mareykanku uu dagaalkan u galay. isagoo qoraalkiisa sii wata waraaqdiisa iscasilaada ayaa waxa uu yiri waxa aan taageersanahay qiimaha siyaasadeena arrimaha dibadda ee aad ku ololeysay 2016 waan taageero u leeyahay siyaasadda arrimaha dibadda ee qiimaha badan aad ku ololeysay madaxweyne Trump ayuu ula jeedaa 2016 2020 waa markii Biden uu ka guuleystay iyo 2024 waxana uu sheegay siyaasadaasi waxa aad meel mariso yiri afartaadii sano ee ugu horeysay laakiin waxa ay dhamaatay June sanadkii 2025 waa markii Mareykanku uu weeraray goobihii nuclearka ee Iran. waxa uu yiri halkaasi ay siyaasadaadii wanaagsaneed ku dhamaatay. marka waxa uu yiri aan fahansanahay in dagaalada ka socda bariga dhexe inay ahaayeen Trump amaba dabin Mareykanka lagu dhacayay isla markaana nolosha qaaliga ah ee wadaniyiinteena lagu burburinayay sidaas darteed lagu baabi'inayay maalkeena iyo waliba wadankeena barwaaqada ah. waxa uu sheegay Trump ayuu la hadlayaa markan wuxuu leeyahay afartaadii sano ee ugu horeysay waxa aad fahantay ayuu yiri wax uusan fahmin madaxweynaashii casriga ah ee Mareykanka soo maray taasi oo ah in militariga Mareykanka aad dhisto awood siisay adigoona sidoo kalena Mareykanka aan wax dagaal ah oo aan dhamaanaynin aadan lugaha u galin. marka taasi wuxuu yiri waxa aad taasi ku cadeysay dilkay Qaasim Suleymani iyo waliba ka adkaatay kooxdii ISIS. laakiin wuxuu leeyahay xilliyadii ugu horeeyay ee maamulkaadan hadda jira xubno sare oo saraakiisha dowladda Israa'iil ka tirsan iyo sidoo kalena xubno kale oo iyaguna galaangal ku leh warbaahinta Mareykanka ayaa waxa ay ka buuxiyeen ayuu yiri warbixino qaldan kuwaasi oo gabi ahaanba waxa uu yiri weeqay siyaasadaadii America First oo ah in markastaba danta Mareykanka danta kale aad ka hormarinayso. waxayna kugu dhiirigeliyeen ayuu yiri in aad dagaal ku qaado Iran. waxa uu sheegay in arintaasi ay ahayd mid aan wanaagsanayn isla markaana Iran aysan qatar ku ahayn Mareykanka. waxana uu sheegay waxay kugu yiraahdeen waa in aad hadda duqaysaa. marka wuxuu leeyahay taageerayaasha Israa'iil iyo saraakiil sarsare oo Israa'iil ka tirsan ayaa arintaasi ku qasbay iyo qaar kamida warbaahinada. waxay sidoo kale ku sheegeen ayuu yiri in ay caddahay wadada guusha sidaas darteed been ayaa arintaasi lagaga sheegay. Israa'iilna dagaalkan qatarta ah iyada ayaa lugaha ku gelisay. waxana uu sheegay dagaalkii masiibadaha ee Ciraaq oo Mareykanka dad fara badan ay uga geeriyoodeen oo rag iyo dumarba leh. waxa uu yiri qaladkaasi oo kale mar kale ma samayn karno. marka wuxuu yiri aniga ka ciidan ahaan ciidanka ayuu hore u soo maray marka ninkan hadda iscasilay oo xarunta la dagaalanka argagixisada ee qaranka Mareykanka madax ka ahaa isla markaana waxa uu yiri 11 dagaal ayaan ka qayb galay abaalmarin ayaana leegu siiyay. waxana uu sheegay xaaskiisa sida aragtaan xaaskiisa labadan caruurta asaguna ciidan ayuu xaaskiisana ciidan ay ahayd. marka wuxuu yiri xaaskigii qaaliga ahayd waxaan ku lumiyay ayuu yiri dagaal Israa'iil ay soo saartay. marka ma taageeri kara ayuu yiri in hadda generationkas xiga ay dagaalamaan isla markaana ay ku dhintaan dagaal aysan wax faa'iido ah ugu jirin dadka Mareykanka isla markaana wax marmarsiya aan loo heli karin in nolol dad Mareykan ah lagu waayo. waxaan ku duceysanayaa ayuu yiri inaad ku cibro qaadato oo waxa aan sameynayno oo ah dagaalka Iran iyo waliba qofka aan u sameynayno xilligan loo baahan yahay tilaabo cad inaad hadda qaadato. waxa uu yiri hadda
waad ka soo laaban kartaa ayuu yiri oo wada saxan ayaad wadanka ku hogaamin kartaa ama haddii kale waxa aad ogolaan kartaa ayuu yiri in aan dagaalkan horay u sii galno isla markaana qalalaaso aan ka dhaxalno waxaanu yiri adiga ayaa mar kastaba kaarkaasi haya oo hogaanka haya marka waxa uu yiri hadda waad joojin kartaa isla markaana wadankeena waad badbaadin kartaa ama waad ku sii socon kartaa ayuu yiri wadankeena hoos u dhac iyo qalalaaso ayaad u horseedi kartaa marka waraaqdan iscasilaada uu qoray madaxa qaranka ee la dagaalanka argagixisada Mareykanka oo Trump magacaabay waa warqad la yaab leh oo ku qiranayo in Mareykanka dagaalkan Israa'iil dartii ay u gashay Iran aysan qatar ku ahayn Mareykanka Trumpna uu leeyahay waa la marin habaabiye haddaba Trump maanta shirkiisa jaraa'id markuu qabanayay ayaa la weydiiyay arrintaas iscasilaada ninkan oo madaxa waaxda la dagaalanka argagixisada ee qaranka waxa uu yiri waxaan u maleynayay inuu nin fiican yahay ninkan inuusan wax weyn ka ogeyn ayuuba sheegayaaba waxaan u maleynayay inuu yahay nin wanaagsan laakiin aad ayuu ugu liitay dhinaca ammaanka ama security-ga waxa uu sheegay in wuxuu ila muuqdo ayuu yiri nin fiican inuu yahay laakiin wax badan ma aanan ka ogeyn laakiin waxa uu yiri waxaan ogaaday qoraalkiisa markii aan akhriyay inuu yiri Iran qatar ma aysan nagu ahayn laakiin waxa uu sheegay in Iran ay qatar ku ahayd wadan kasta laakiin su'aashu waxa ay tahay Trump ayaa si fashilaya hadalkiisa waa daawansiinaya waxa uu leeyahay inay wax sameyn rabaan iyo in kale ma aanan ogeyn laakiin su'aashu taas ayay tahay laakiin Iran wadan kasta qatar ayay ku ahayd ayuu leeyahay haddaba Trump markii la weydiiyay iscasilaada ninkan iyo waliba waraaqda uu qoray muxuu uga jawaabay